السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أمهات سنتين dadka ka soo qayb galay eventigan ama xafladan aan u sameeynay in lagu soo daafuro ambassadorka boogkiisa danjire sharaf ay noo tahay annaga hadaan nahay reer Seattle Washington caawo dadka meeshan isugu yimid waa dadka mar walba ka qayb qaata wax walba oo arrimaha bulshada ku saabsan haday tahay leadership keena dadka leaders keena ah oo Maama Xamdi iyo Maama Sahro ay ka maaragtay lead ka yihiin de mar walbana dumarka lead gareeya marka ragga oo iska raali ahaada waa ogtiin arintaas ay mar walba waan ka hadlaa marka ma sha Allah caawo in badan ayaa maaragtay hadal badan baa la sheegay oo ku saabsan walaalkay Maxamed Cali Nuur Ali America waxaan ka fakarayay maxaanan la oranin oon oran karaa waa ku sii dul fakaray moogta intaan dadka dhageysanayay there was time waxaa jirtay markii ugu horeysay oo aniga anoo maqli jiray ayaa haddana waxaan follow gareyn jiray social media waa garateen hawlihiisa waa ogtihiin social media aad u isticmaalnaa marka waxaan arkay badda liido agteeda gabdho oo dhalinyaro ah 20 jiro iyo oo isku soo agsawreen ambassadorka uu dhex taagan yahay markaas waxay leeyihiin the sexy grandfather you know marka waxaan iri I have to ina sheego arintaas oo la leeyahay he is the sexy grandfather waa hadal aan wali maqlin caaw inta dad sheego sugay ilaahu aan leeyahay hor oranina dhahay marka the last couple days I was watching him waxaan dhahay how he become the sexy grandfather waa ina u dhuur galo oo ina hado bal hay muxuu sameeyaa horta yeah you know he's in good shape and you know masha Allah grandfather ma ku xumo you know marka waxa arkay ninkii oo dhahayo aniga habeenkii ma casheeyo waxa ma cuni kari waxa dhahay oh now I know that's why he's sexy America we are grandfather ka you know cashadii iska ilaalina meelii qadada la geenay dadku wuxuu leeyahay fish yar isiya kan igleexiye waxaan dhahay aha war cashar ha laga barto aniga waxaan ahay health coach I coach chronic disease patients marka always dadku waxay dhahaan ubax cagaar mar walba masawir cagaar ay meesha xoolo miyaana cagaarkii loo ninka cunayaaba ka faa'iideysta soo hala koobi gareeyo so that dadka meesha jooga hadhow markaad awooyaal noqotiin sexy grandfather sa u noqotiin idinkana insha Allah inta markaan kaftankii uga leexdo waxaan aad ugu faraxsanahay horta anigoo ku hadlaya magaca dumarka hablaha yaryarka iyo waaweenkaba Soomaaliyeed ee magaalada Seattle in aan nahay dad aad iyo aad mar walba qof kasta oo martino ah soo dhaweeya marba hadaa qaran u taagan tahay anigu calamada oo nooc ah ma aado laakiin qof ka socda arin Soomaalinimo arin guud waanu soo dhaweynaa si aan waliba caadi ahayn oo magaalooyinka kale ka wanaagsan waa lagu celceliyay caawa Sheekh Axmed Nuur iyo qofku noo yahay waxa u maleynayaa hadalku ma soo koobi karno Sheekh Axmed Nuur iyo qofku noo yahay waliba aniga si qaas ah ayaan waxaan rabaa inaan iraahdo Sheekh Axmed Nuur thank you mahadsanid mar walba saan oo garab taagantahay aad baan kaaga mahad celinaya waxaan rabaa inaan mahad celin gooniya intaan u yeerin ambassadorka siiyo teamkii soo abaabulay arintan ka soo shaqeeyay oo Maama Sahro ay ugu horeysay lead gareynaysay oo uu ku xigo OJ Dubo walaashay Bakiin Ali Sheegow yani Laawaya Ali Rooble marka waa la badan yahay inta qaaska ah oo goonida ah iyo inta kale oo aanan laga sheegin of course kalkaal always wuu garab taagan yahay kalkaal meeshii aan anaga laga arko video aan leenahay waxa way kalkaal taagan galaal oo dadka jecleen inuu la arko ma jecla laakiin kalkaal aad u mahadsantahay abo thank you so much marka inta ka soo tago haddana waxaan u yeerayaa the sexy grandfather magaciisa xataa ma sheegayo soo dhawow ambassador